الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم والاه. معاشر المسلمين وأحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa maalintii 22aad ee bishii barakeysneed ee Ramadaan ahayd. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay idinkaba kuwa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka aqbala taraawiixdooda iyo salaadooda iyo cibaadadooda iyo sadaqadooda iyo soonkooda uu ka aqbala Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naga dhigo dunuubteena iyo dunuubta waalidiinteena uu dhaafo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu mataqaana naga dhigo kuwa khayrka mar walba u soo degdegay ya rabbal caalamiin. Maanta waxaan qaadanaynaa xadiis cadiim ah, xadiis aad iyo aad u wanaagsan. xadiidta nabiga sallallahu alayhi wasallam kulligood way wanaagsan tahay, laakiin maanta xadiidka aan qaadanayna waa xadiid nabiga sallallahu alayhi wasallam uu la dardaarmayo abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ardaah. Abdullah ibn Abbas walaalayaal wuxuu ahaa saxaabi jaliil ah, nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam in adeerkii buu ahaa. waxa weeye Abdullah ibn Abbas xabru hadhihi al-umma, wuxuu ahaa kii qur'aanka tarjumi jiray wa turjumaan al-qur'aan. aayad aad weydiiso meel walba ay ku jirto wuxuu yaqaanaa mataqaanaa waqtigay soo degatay iyo xilligay soo degatay. nabiga sallallahu alayhi wasallam cilmi badan uu ka dhaxlay calayhi salaatu wassalaam. waxa weeye asagana min almukthiriina min xadiisi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam, xadiis badan buu mataqaanaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ka xifdiyey calayhi salaatu wassalaam. Cabdullah ibn Abbas walaalayaal waxaa la sheegaa inuu nabiga u duceeyey, allahuma wuxuu yidhi faqihhu fi ddiin wacallimhu ta'wiil, ilaahay u diinta bar, تأويلك iyo tafsiirka quraanka iyo quraankana bar buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam uu duceeyay. ducada nabiga sallallahu alayhi wasallam walaalayaal waa duco mustajaab ah. hadda haduu noo soo galo nabiga alayhi salatu wasallam uu dhaho ilaahayow mataqaana sheekhan muxaadarada sheegayo iyo dadka quruxda badan ee daawanayo ilaahayow jannada gee haduu dhaho nabiga sallallahu alayhi wasallam ducadiisa waa mustajaab. ilaahay waa ajiibaya subhanahu wa ta'ala. ilaahay subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla wuxuu jecel yahay qofkii mar walba mataqaana nabiga sallallahu alayhi wasallam wadadiisa iyo khayrkiisa qabsan. nabiga alayhi salatu wasallam gacmaha haduu kor u qaado saxaabada iyo way waxay ogaayeen in nabiga sallallahu alayhi wasallam ducadiisa la ijaabayo. nabiga sallallahu alayhi wasallam ducadiisii waa loo ijaabay oo Abdullah ibn Abbas u duceeyay. oo Abdullah ibn Abbas wuxuu ka dhigay xabru hadhihi al-umma wa turjumaan al-Qur'an. ma sha Allah magaalada Taif la dhaho ayuu ku dhintay alayhi rahmatullahi wa ridwanihi. marka xaggaas uu dadka culumtii ma sha Allah tabarakallah ilaahi baray uu dadka baray. walaalayaal Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qaala wuxuu yidhi kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, maalmaha kamid ah anigoo nabiga sallallahu alayhi wasallam daba socdo yidhi sallallahu alayhi wasallam. faqaala wuxuu yidhi kuntu khalfa an-nabiy, yani waxay noqon kartaa inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam daba socday ama inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam daabadii uu korsanaa geela ha noqoto ama faras ha noqoto markaas uu mataqaanaa nabiga sallallahu alayhi wasallam la korsanaa. nabigii asaga ay korsanaayeen geelii أي متقانا كنت رديف النبي، معناها رديف كيسا وأها ومتقانا قداشي سأوفدي عليه الصلاة والسلام. مركا وحكويري يا غلام ويلي هو بكويري الله أكبر. مركي يا غلام ندح عبد الله بن عباس وأسو جيت سذي رضي الله عنه وأرضاه وحكويري يا غلام إني أعلمك كلمات وحن كبر يا كلمذوين أما كلمات أيام كبر ياي إيجا حفظي إني أعلمك كلمات إني أعلمك وحن كبريا كلمات احفظ الله يحفظك. إلهي حفظي، إلهي واكو حفظنا يا معناها وحاوي احفظ الله يحفظك، احفظ الله اعرف حدوده وقف عندها. حدود إلهي سبحانه وتعالى قرأ، إلهي وحوك أمري قرأ، إلهي سبحانه وتعالى وعز وجل وحوكا ضلبضي سماء، إلهي أمركوك أمري لئمو وهداهن أمر كيس سبحانه وتعالى تجده وحد هليسا أمامك. إلهي أساقو هورت هذا آيات هليسا معناها وحوال بقود لتمادد أو خير مركاد إلهي أسود دقدقتد سبحانه وتعالى أوامرتي سي آيات حفظدد صلاة دي أكو أمر آيات حفظدد سنة دي النبي آيات قالتد دينت إلهي سبحانه وتعالى أدخل لقنتد مروال بإلهي سبحانه وتعالى أدعو أردد إلهي معناها تجده أمامك وإلهي سبحانه وتعالى وكعاونيا
إلهي سبحانه وتعالى خيركو متقانا كوغو متقانا هدينيا إلهي سبحانه وتعالى طاعدو كوف الضينيا إلهي سبحانه وتعالى يعني مخالفة ذي إلهي سبحانه وتعالى ونغنى هي مركاذا لا إيمان إلهي واكو جعلانا يا سبحانه وتعالى فإنك تجده في الشدائد حلقة أي دباتذا كوغو دعضو أي كربذا كوغو دعضو ما دام أد مركي هور إلهي كحرنيت إلهي كما ضيعي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى كما ضيعي واد أغيدين saddex nin ay mataqaanaa buurtu intay ku soo degatay ay ka bixi waayeen markaasuu nin walba camal saalixa soo xasuustay uu sameeyey camalkii saalixa uu badbaadiyey oo markaas marba way isfurtaa buurtii ku daboolantay si ay uga soo wada baxeen kulligood macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walbood ku xiran tahay faraj ayaa ku imanaya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إلهي احفظه تجده تجاهك أي تجده يدلك على كل خير خير والبو إلهي سبحانه وتعالى كوا فجنيا طريق والبو أو طريقي سأنا وكوسو هدينيا أو إلهي سبحانه وتعالى هداية كوسينا وحكوي لمركة إذا سألت فاسأل الله دردارا كلا بعض وحوقها إذا سألت فاسأل الله هداد وحوي ديسته إلهي وحوي ديسو ما أنت ولا للحركين ضد بدن بني آدم قعمها الله هرسنايو هيئة الأمم هنجسوا جارتو هيئة عالم كان نجسوا جارين أما واحد أركي ساقف لها هبل محو يعاون وهاي هبل مو يعاويه يعني ضدك أيان حوائج تاني أودي بني مركز إلهنا سبحانه وتعالى نجعرونيا إلهي وحاوي أمور تاني إلهنا أودي بنو إلهي مركزه نعاونيا يقين تاني إني على الله تهي إلهي إنه رازق هي إلهي إنه كي معناها عذرك كينا هي كي عذرك قاذا كي عفماتك بحنا كي dadka dilaya kii dadka nooleynaya waa Allah subxaanahu wa tacaala alxayu alqayuum marka wuxuu ku yidhi idaa sa'alta fas'al illaah haddii aad ruux wax weydiisato ilaahay wax weydiiso haddii aad su-aal kaa soo baxdaba su-aasha ha noqoto lilah subxaanahu wa tacaala walidaalika walaalayaal qur'aanka haddaan aragno waxaan arkaynaa ilaahay inuu leeyahay wayas'aluunaka can ilahillah ama yas'aluunaka can ilahillah qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj wayas'aluunaka can ilyataama qul islaaxun lahum khayr yas'aluunaka can ilmaxiid قل هو أذن فاعتزلوا النساء يسألونك عن الأنفال قل الأنفال دائما قرآنك واحد أركيسا مركي يسألونك لده قل أمباك الدم بيساس كله هو لكن مركي إلهي سبحانه وتعالى حقي سأيتمد إلهي محيري وإذا سألك عبادي عني قل لما أرن أنت لكن محيري إلهي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنقوان دوهي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قفك هدو إلهي وحويديستو إلهي وانسينا مركا هداد روح وحويديستد إلهي وحويديسو فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله إشارة إلى أن العبد لا ينبغي له أن يعلق سره بغير الله ورسرت هذا إلهي أنك تعليقي بني آدم وحبها أوليبن بني آدم هتلصارن بني آدم هكنت شنن إلهي كنت شو إلهي تلصار سبحانه وتعالى أمورت هذا إذن من حيث سؤال الناس في الأمور التي لا يقدرون على تحقيقها سؤالها إدتك معناها أين أوذن سيدا سؤاش قبري أو كلا وحويدي ستد روح لنتي وحكم قبني لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أما إنه ويدي روح متقانا إن أنا وحون أوذن ويديو وحاوي إلهي سبحانه وتعالى وعز وجل مجعل أما ولي وحويديو له مثلا لنتي أما كذا وله قبر جيسا استجابة معروض إذا جنة إيجي وكله دون الله سبحانه وتعالى تاسنا وارن آدي آد متقانا خطرت ذي هذا ولا ليال مركا نبي صلى الله عليه وسلم ولا دردار وحكويني وإذا استعنت فاستعين بالله هدي أذروح كالميسانيسو إلهي كالميسو فاستعن بالله إلهي كالميسو إياك نعبد وإياك نستعين وتحقيقي إذا استعنت فاستعن بالله أردت الاستعانة في الطاعة هدرت إلهي أنه طاعتك عاوية أما أمورتي أدونك أوك عاوية فاستعن بالله فإنه هو المستعان إلهي ويك كالميستو وعليه التكلان إلهي ويك تلذل سارتو قعنتي سبحانه وتعالى قعنتي سيكجر الملكوت السماوات والأرض وحكويري مركز النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة أي سائر المخلوقين أمدو إذل وح إلهي كسو هريو دن هدي ما أنت الربان إني بتقانا أن لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء إني كو أنفعان أما كركو قاذان أما هوسكو ديغان والله ما أوذان أما خير الدنيا خير آخرة أي كسيان وحون إلهي كو قرين مهليس لم ينفعوك كما أنفعيان بشيء من الأشياء وح شيء أي كتريان أمداسو إذل هدي اسكو كاتمادو ماله إلا بشيء قد كتبه الله لك مركا دونك واحد هلي ساؤون وحو إلهي كو قري سبحانه وتعالى وحون إلهي كو قري سبحانه وتعالى مهليس أي إلهي تلصاروي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إلهي سبحانه وتعالى وعز وجل هذي أمدنا إسكاشته si ay rabaan inay kuu caawiyaan ama ay rabaan inay dhibaato kuu gaarsiiyaan wax dhibaato ay kuu gaarsiin karaan male maadaama ilaahay uunan idankii bixin in lagu gaarsiiyo dhibaatadaas. rufacat alaqlaam wixii ku qornaa qalinkaagii oo ilaahay aqdaartii uu ku qoray oo suxuftii saxaiftaada lagu qoray ajashaadii cumrigaaga intaad noolaan lahayd meeqaad heli lahayd maxaad caruur heli lahayd waxaas oo dhan way qoran yihiin. rufacat alaqlaamu wajaffat as-suhuf. marka bini aadamka wax uu la walwalaba male hadihi dunya. dardaaranka nabiga hadduu ku dhaqmo oo ilaahay xifdiyo oo ilaahay kaalmaysto oo ilaahay mar walba wax weydiisto wallahi ilaahay nama dayacayo subxaanahu wa tacaala. wuuna jecel yahay addoonkiisa inuu weydiisto. addoonkiisa yabtaliih amraaduu ilaahay kugu ibtalaynaya, caruur buu ilaahay kugu ibtalaynaya, wax walbuu ilaahay kugu mar walba ilaahay u carar. leanna ilaahay dadka qaar wuxuu jecel yahay inuu maqlo su-aasha ay iyaga weydiisanayaan. ama ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka qaar jannada meel buu u qoray inay gaaraan, meeshaasna acmaashoodii ma gaarsiiso. markaasuu ilaahay ibtilaa yar iyo dhibaato yar iyo imtixaan yar lasoo marinaya. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda imtixaanka haysto allah ka dulqaado. kuwii ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay tala saarta mar walbana oo dardaaranka nabiga uu cabdullaahi ibni cabbaas kula dardaarmay ku dhaqmana ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga dhiga walaalayaal. marka talooyinkeena ilaahay aan saaranno, ilaahay aan barino, ilaahay aan ku tawakalno. addoon iyo makhluuq wax ayna tari karaan ama waxayna anfici karaan ma leh ka wax taro, ka wax anfaco, ka wax la weydiisto, kana kaalmaynayo, ka ilaahay subxaanahu wa tacaala mataqaanaa uu caawinayo, ka ilaahay subxaanahu wa tacaala u jecel wa huwa allahu subxaanahu wa tacaala. ilaahay unbaa waxaasoo dhan noo qaban karo. bini aadam wax ay noo qaban karaan ma leh. waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh ina allaha baaligu amrih قد جعل الله لكل شيء قدرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر